marka boqolkii boqol waa saxanta inuu saddex oo hadii marka xitaab iyo waano loo soo jeediyo dadka walaalihiis u soo jeediya ila dadka walaalaha ku arki kare inuu maartay si qalbi samiyo uga qaato inuu sana iskibrin oo san maanta ma arkaysa oo sadhihin warkayga aniga kaliya ayaa jira marka uu tawaaduco taas wala qaadanaya iyo haduu ninka caalimka inuu cilmigiisa dadka dhan u bandhigo oo sinmo oo dad gooniya oo san ugu daba ordin kala iska dhaafaalay inay arintu ay saas tahay nacam oo inaad nimankan aad ka daba orodid aan ku rabin dadkii maartay xaq doona aad ka mashquushid arintu saas ma ahane innaha suuradani tadhkiratun wa waano waay iyo dardaar oo maxaa la isku dardaarma dadka in loo simo in cilmiga iyo tabliiqa la gaarsiiyo in qofna aan laga mashquulin qofna aan maanta ma arkaysa laga daba ordin waay faman shaa qofkii doona dhakarahu wa kuwan sameeya ila quraanku wax lagu waan sameeyo soma oo ku xasuusinaya maslaxadaad iyo dantaad wuxuu rabbiga kaaga raal noqonay wuxuu kaaga caroonay waxa ku wanaagsan waxaad aakhiro ku badbaadayso waxaad ku khasaarayso xalaashiya xaaraanta cadawgaaga iyo shaydaanka kaydka uu kugu haayo saad uga baxsan kartid naftaada iyo khaladaadka kugu hayso saad uga baxsan kartid waxaas oo dhan uu ku waanaya marka waa waano ilaa qofka quraanka haduu akhriyo oo hadiya goral ka warqabo markaas waano baa ku jirta isjir waxaan iska jirsan hayeel saana khayr ayuubta nafta markaas lagu baraarujinayo quraankaas tadkiradaas oo fi suhufin haashiyo ku qoran oo mukarramati la karaamiyo looxul mahfuudkii ku qorantay waa karaameysanta fi suhufin bay ku qorantay mukarramati la karaamiyo marfuucatin kor loo qaaday oo looxul mahfuudka ku qoran mudahharatin ee daahiraho shayaadiinto kale ayna taaba karin iyo waxa aan daahir aysan ahayn taasoo marka la soo dejinayo biaydi safaratin malaa'ig oo maanta muslixiinho wanaag u socda gacantooda ku jirta kiraamin kuwaasoo wanaagsan oo bararatin oo baariyaal ah marka suxuftaasi iyo xaashiyaha quraanka uu ku yaalo aad bay u karaameysanta aad bay u qiimo badan tahay looxul mahfuudkeena ku taala markii la soo dejiyana waa noo imaan doonta malaku jibriil iyo awaantiisa loo soo dhiibaya malaku jibriil loo soo laakiin intaas awaanaha la socota Soomaa marka kuwaas oo kale kuwa safarada la yiraahdo safarada asligeedu waxa weey waa ninka qabiilkiisa ku dhex jiro oo iyo dadka maslaxo iyo waawaan iyo heshiisiin dhex wada la yiraahdo ama boqorada dawladaha ragga ay u dirsadaan dadka oo maartay yani cilaaqaadka inay wanaajiyaan iyo masaalixda inay ka shaqeeyaan hada ninka dawladda manduubka waa safiir asalka marka safaaradana waxay dhihi jireen maartay waa islaax oo wuxuu dhihi ninka shaacirka ahaa yani wala azalu safarata bayna qawmi qawmkayga inaan maslaxo iyo wanaag aan ka dhex wado iyo qawm kale maartay inaan safiir ka ahay oo macna wanaag aan ku dhaxoodo ka zuulin maayo markay wala as'a wa in sa'aytu yani bigishin saasi dhijir hadii hada aan socdana khiyaano iyo gish oo kale lama soconayo ee qof amaano iyo wanaag baan la soconaya marka waxa loogu mithalay malaa'ikta oo waxyiga keenaysa waxyigu dadka wax wanaajiyo islaax u socda marka anbiyada wax dadka maslaxa iyo wanaag u ah ayay u keenayaan marka kuwaas marka waa kuwa aad iyo aad u wanaagsano bararatin oo baariyaal ah oo macna wax haba yaraatay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo naco aan maanta ma arkaysa aan sameeyeen marka waxyiga qiimahaas leh waxa way in qolo waxa beedka waxa ahaa wama ad'u as-safarata bayna qawmi wama amshi bighishin in mashitu kama zuulayo macna inaan safaaro qomkeyga iyo qolooyinka inaan kula dhex soconay macna islaax wama amshi bighishin in mashitu hadii aan socdo oo qomkeyga kala dhex socdana nin qiyaano iyo isku dir sida hada odayaalkeen ay noqdeen lama dhex soconaya wanaag iyo masaalixan dadka dhex shaqeynaayo halka markay marayso Allah subhanahu wa ta'ala bini aadamka lagu soo jeesanaya
gaar ahaan kufaaru Makka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa ay ku wajahan tahay gaar ahaan nimankii intuu nabigu dacwada intuu u soo bandhigay oo si maaragtay gooni oo isugu hawlay haddana xaqii beeniyey oo maanta ku kufriyey taasaa marka kuwaasaa lacananaya waxaa leeyahay qutila alinsaanu insaankii gaalka ah waa la lacnadee maa akfarahu maxaa ka kufri badan alla kufri badana inkaar qabe ilaaha abuuray u nicmeeyey rasuulaa loo soo diray rasuulkii xataa ku dadaa dhinacankaas waxooga dhaadhici wamaca daalika goonkay taagayaan xaqii ma rumaynayaan marka waxaa leeyahy inkaar ku dhacdee maa akfarahu alla kufrin badana marka insaanka waxaa ka muuqata marka wuxuu la kuwa iska birinaya waxbuu ismood oo xaqii iskala weyn yahay rasuulku iskala weyn yahay alla iskala weyn diintu iskala weyn markaas asalkiisa la xasuuna waxa leeyahay insaan hadaa insaan tahay isla weynaan kuma taal bal eeg waxa laga abuuray min ay shay maxayba khalaqahu ilaahi oo ka abuuray horta ilaahan baa ku karaameeyo ku dhisay oo maarta qurxiyo maahane asalkaagi bal maxuu ahaa marka asalkaagi fiirisid ayaad ogaan kartaa inaad astaahasho inaad kibirtii in kale min nutfatin candhuuf buu khalaqahu ilaahi oo ka abuuray oo waa manida yartaa oo qofka marada hadday ka taabato oo iska tirtirayo min nutfatin candhuuf oo manidii buu khalaqahu ka abuuray faqadarahu waa jaangooy sida calooshii mindhicil maaragtay rixmkii loogu habaynayo oo hadda maraaxil u soo waraayo nutfa iyo calaaqa cad yaroo xinjir maaragtay dhiiga iyo mudqa cad yaroo hiliba ee haddana la suureeyo indhihii wixii loo calaameeyey 4 bilood ka bacda ruuxda lagu afuufay khalqigiisa oo mutakaamil noqday oo qof bini aadam oo qurxoon oo noqday ee risqigiisii iyo ajashiisii iyo shaq iyo saciid wuxuu yahay sida xadiidkii mascuud ku sugnaa loo qadaray saasaa loo qadaray min nutfatin buu khalaqahu ka abuuray faqadarahu waa qadar waa jaankoy yacni quruxdiisii iyo suuradiisii iyo habkiisii bini aadnimadiisii iyo wuxuu risqigiisii wixiisu ku noolaan lahaa waa loo qadaro waa loo jaangooy asagoo wax kasta u diyaar yihiin oo noloshiisii ay dhammaystirantay oo raashinkiisii cuntadiisii rixmkooyadiis ku qaadanay ayaa markii uu dhammaystirmo calooshii intaas ka bacdi uusan xamili karin marxalatul wilaada imaanaysa wilaadadii hadda makhrajkan waa makhraj jar waay oo qof weyn uuna ka soo bixi karin laakiin ilaaha u fudeeyey uma sabiila jidkii oo ku soo bixi lahaa oo caloosha kaga soo bixi lahaa bannaan ku imaan lahaabow yasarahu ilaahay u fudeeyey jidkii oo ku dhalan lahaa oo meel cariiri ah ayuu ilaahay u fudeeyey subxaana wa tacaala marka culimo badan qaaray ku fasiraan oo uma sabiila yasarahu waxay ku fasiraan macnaa dhalashada markuu dhalanayo oo macnaha jidka hooyadiis oo soo maray ibn Cabbaas iyo saasay ku fasiraan qaarna waxay leeyihiin yani khayrkii shartu kala fahamsiin laakiin ibn Jariir muddo hore rajaxaya labada waa lagu maarto waa lagu xambaari karaa oo macnaa jidkii khayrkii shartana u kufadiyo inna hadaynahu sabiila imma shaakir wa imma kafuur jidkii khayrkii jidkii sharta ayaa loo kala fududay laakiin ibn Jariir wuxuu leeyahay tana munaasabaho de hadda calooshiiba maartay lagu xambaaray calooshii ku dhammaystirmay marka wuxuu u baahan inuu soo baxo banaanka u soo baxo Soomaa marka jidkii dhalmada in loo fududeeyo markii jidkii loo fududeeyo adduunyadii uu ku koray oo waa weynaaday oo calafkiisii iyo wixii ilaahay u qadaray ayuu maanta ma arkaysaa dhammaystay oo nin la yaqaano noqday ama gabar la yaqaano oo maartay tarantay oo xoolo iyo magac iyo wax kasta hesho noqdo Soomaa ajashiisii marka timid ajashiisii markay timid thumma amaatahu ilaahi wa udilay macna ajashiisii ku timid ilaaha nafta qabdooda malaa'ikta ha ugu soo diro macna liqabd arwaax muwakkaliin ha ahaadeen laakiin yaa wax maanta ma arkaysaa dila allah baa dila subhanahu wa ta'ala markii la dilay fa aqbarahu ilaaha subhanahu wa ta'ala qabri gali bimacna waa maxay bin aadamka karaamada la karaamay waxa kamida in la yiri isduuga oo qofka maartay haad iyo banaanka looga tagay marka waxa qabrisiinay waa Allah macna adoomadiisu ku hanuun oo markii ugu horeeyay oo qof bin aadam dhulka ku dhintay labadii bin aadam markay isdishay oo soo u duuga oo qoway
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض مثل قضايا لبودك أنت شيء ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين الله شاء يوضح مسجد تكان وحدوه أيا أنغنا وحدوه كريوان نعم مرك إلها قبرسية قاب مرك واقفك إلها قبرسية نعم سيد شاعرك يقول لو أسند ميتا إلى صدرها عاش ولم يرقل إلى قابره وعرفت أن عشق وكبته إسلام وأمانة وحكوليها إسلام تصنع عاشق سنة قف ميدة هدي حبت كذا اللي قلت توريه نفتع بكسر نقول هذا قبر والله ما قال كم انت قبر عاشق وقاد وكذاب نعم لكن عشق هذه كبت نعم معناها قابرك وحو قبر سينا والله إله سبحانه وتعالى فري marka intaasoo dhan ilaahay heerarkaas macnaha soo awooday wuu awoodaa inuu soo nooleeyo alii heerarkaas soo marsiinay inuu beeniyo ma ahayn ba la leeyahay kalla iskaba dhaaf iswaaweynaysiinta isaaku iswaaweynaysiinaya wax jira ma aha iyo malada u malaynayo inuu toosiyo isla fiican yahay xaqi alla uu gutay wax jira ma ahane لما يقضي ما سمين ولي ما أمر وحي لفر إنسانكم مارد ولي وحي لسميه كما صابح معناه كان كافر كان هذا وحل الأمر ما بطابا كوا مؤمنين تا إن بدنا ومقصرين قد بدنا مارد إسلام كشيغان أم الدين شيغان وحي إلهي فري وكوكا بوت فلها مركا قال كان كليا ما بطاتا وحبا كما قبل هدتك عصاد هدتك اسكلي ليتنا إن بدنا أوامرتك كمذا صمد يا عيال سيدا نوكل إله نونا حريص كلا اسكبر داف إسلوا وينين تاس يحق إنكر كاسي يقفل بإنه اسم لا إنه حقوق ذي ألقنتيه لما يقضي إنسان كي مسمين ما أمر وحي أوفره وقال كينا كليا مسمين مؤمن كينا إن بدنا كمذا حنبا كريبا هداد بعثك آد بين سنتين إيه صابحنته وحاد في رسان فلينظر الإنسان إنسان كهفيري إلى طعامه عنتدا أو عنا وكنوا لها سيدابي كتمدها أيو سيدابي كتبها ديو أيو إيه هدو جركيس عنتدا سي إنرجي إيه قوة إسو بدل إسو أقولنا ولانا هدو تاك فكره أولا نعمة الله وكشكر لها ثانيا وحقر لها أود الله إنه إليه سبحانه وتعالى بعث إنه ذاتك صار وآخر مركز الإنسان إنه أسوي هاي الله سبحانه وتعالى كان عبادة مضن وغير كل عابد كريم وحي يقيس إنه حق هاي نبي أو ناصر در محمد عليه الصلاة والسلام إنه حق هاي تاسو أغانيها عنا ذا سين أسمين واكنو أن صببنا الماء بيان عركا كسو شبنا صبان شبتان رابا سودين ثم شققنا الأرض دلكي من جحنا وشقا جيحتان معنى دلك وحاد أركيسا بيها وأقبل يا ميلو قدن أونان أركين أيو بيها قلوقا يا دلكي الشق قمان تك سألو جيحيا هذا لقموض ميلاه يريرو دلدلالك الرابك بيها أو كعب دلك ساو لحق قليس oo dhulkii markaas intuu qoyo nabaadka soo saarayo oo dhulka meelaha biyaha dhex galis shaqiga meelahaas laga wada thumma shaqana la shaqana fa ambatna fiha dhulkii waxaanu ka soo dhalinay oo ka abuurnay xabban xububta misagada iyo sareenta iyo waxyaalaha quutul gaalibka ee dadku imaarta noloshooda laf dhabarku iyo quudka ayaanu ka soo bixin iyo wa cinaban cinabku waa waxyaalaha fawaakihada lagu faakaysto ilaa cinabka soo faakiyo looma cuno iyo waqadban iyo cagaar waxyaalaha cagaarka oo ama asalaatooyinka iyo waxyaalaha dadku cuno isaga dhandhanansadaan ama waxyaalaha xooluhu ay cunaan oo daaqa oo qiyana qalbi la yiraahdo nacam nacam marka waxa xooluhu ay cunaan markay qoyan yihiin markii ay qalaan waxa la alqat ayaa la yiraahdaa nacam waxa kale soo galaya waxyaalaha cagaarka iyo bagelka iyo waxyaalahaas oo dadkuna ay ka faa'iideystaan oo xoogaa kuna dhansanado indhaha iyo fitamiinaadka badan leh waxyaalahaas oo dhan maar ayaa soo gala
iyo wa zaytuunan zaytuunan abuurnay zaytuunka annaga midkan